tani waa magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ee geeyiga Jamhuuriyadda Somaliland waxayna ku taallaa dhul buuraley ah oo inta badan roobku aad uga da'o hase yeeshee cimilo ahaan goobta ay ku taalla magaaladu waa meel aad u qabow waqtiga jiilaalka Boorame waxaa ku nool dad gaaraya ilaa 450,000 oo qof waxayna ka mid tahay magaalooyinka horumarkoodu sida aadka u soo korayo sanadihii u dambeeyay taasi oo ay sabab u yihiin dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame oo ah dad jecel horumarka Boorame waxaa ku yaala dhismayaal aad u qurux badan hase yeeshee dhismayaashaas ayaa ah kuwa si casriyeysan oo heer sare ah loo dhisay sidoo kale waxaa weli ka socda dhisme ay wadaan shirkadaha dhismaha guryuhu kuwaas oo maalinta ka dambaysa ku hawlan hirgelinta dhismayaal cusub si ay u ballaaratay magaaladu balse goobaha sida aadka ku soo jiidanaya ee qurba joogta iyo dadweynaha kale daafaha caalamka yimaada ay u soo dalxiis tagaan waa hoteelada waaweyn ee ku yaala gudaha magaalada Boorame haddaba hoteelada ayaa kuwa inta badan ishu ku doogsanayso markaad dhex gasho gudaha hoteelka waxaad arkaysaa ubaxyo lagu beeray hoteelka gudihiisa oo carafkoodu aad u udgoon yahay isla markaana hoteelada ugu badan ee dadweynuhu soo dalxiis tagaan waxaa ka mid ah sida Saw Hotel, Rice Hotel, Oslo Hotel iyo hoteelo badan oo kale dhinaca kale si loo qurxiyo bilicda magaalada Boorame wadooyinka waaweyn ee isku xidha suuqyada kala duwan ee magaalada waxaa ka socda dhisme kaasi oo dayactir iyo dib u habeyn ballaaran loogu sameeyo wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada Boorame kadib markii baabuurtu si aad ugu soo badatay magaalada Boorame hase yeeshee shirkado badanna ay keeneen baabuur nooca loo yaqaan basaska kuwaas oo isaga kala goosha magaalooyinka waaweyn ee dalka shirkadahaasi oo kala ah sida Sahal, Bariya Galbeed, Star iyo shirkado kale oo fara badan kuwaasi oo xafiis ka furtay magaalada Boorame haddaba shirkadahan waxay ku qaadaan dadka rakaabka iyo alaabtaba qiimo ka jabankii hore baabuurtu ugu qaadi jirtay balse sababaha keenaya in gawaaridu sidan ugu soo bataan magaalada ayaa waxa ugu wacan horumarka adeegyada bulshada kobaca dhaqaalaha iyo xasiloonida ka jirta magaalada Boorame dhinaca waxbarashada magaalada Boorame waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waxbarashada wanaagsan waxaana jirta arday badan oo ka timid koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Boorame ardayda faraha badan ee waxbarasho ahaan u yimaada jaamacadaha magaaladu waxay qayb ka qaateen kobaca dhaqaalaha dalka iyo horumarka magaalada Boorame dhinaca ciyaaraha kubadda cagta magaalada Boorame waxay ku jirtaa kaalin wanaagsan waxayna ku guuleysatay ciyaaray xulka gobolada Somaliland ee sanadii 2016 ka dhacay magaalada Hargeysa iyadoo kaalinta koobaad gashay sidoo kale waxaa jira kooxo ciyaartooy oo inta badan ciyaaro saaxiibtinimo ku ciyaara garoomada rooga ee laga hirgeliyay magaalada Boorame hase yeeshee ciyaaro waxay kaalin lixaad ka qaateen horumarka isdhexgalka dhalinyarada ee magaalada Boorame Inta kale magaalada Boorame waxa ku yaala cisbitaallo fara badan oo tayo leh kuwaas oo caafimaad ahaan looga yimaado wadamo badan oo geeska Afrika ku yaala cisbitaallada waxa ka shaqeeya shaqaale ajaanib iyo Soomaali iskugu jira waxaana dareemi kartaa habsami socodka shaqo markaad dhex gasho gudaha cisbitaallada ugu dambeyntii suuqyada waaweyn ee magaalada Boorame oo kuwa aad u mashquul ah inta badan waxaana dareemaysaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga sida aadka uga socda suuqyada magaalada sidoo kale suuqyada maciishada iyo khudaarta ee Boorame markaad dhex tagto waxay indhahaagu qabanayaan dadweynaha aad moodayso inay fiilo ku jiraan oo suuqyada camiran
kuwaas oo iibsanaya noocyada kala duwan ee khudaarta iyo maciishada. Sidoo kale ganacsiga dharka, kabaha iyo alaabooyinka kale ayaa iyaguna mid si xawli ah u socda. Isku soo wada duubo isbeddelka ballaaran ee dhinaca horumarka ay ku tallaabsatay magaalada Boorame waa mid ay horseed ka yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan. Cabdisalaam Suldaan, magaalada Boorame. Manabataye